afar su'aalood ku saabsan xirfadda nursing jarmalka lagu baran karo Krankenschwester. Nein, das heißt nicht mehr Krankenschwester. Heutzutage nennt man das Pflegefachfrau. Magaca wala gabadalay. Magaca waa laga bedelay Pflegefachfrau. Kow, wie lange dauert die Ausbildung? Ausbildung imse sanay qaadanaysaa iyo lacagta la qaato waa imse weeyaan? Ausbildung waa 3 sano. lacagta la qaatana waa imse weeyaan? sanadka ugu horeeya waxaa la qaata 1,100 euro, sanadka labaad 1,200 euro, sanadka saddexaadna 1,300 euro. Su'aasha labaad, was für einen Abschluss braucht man? Shahaado noocee ayaa loo baahan yahay? In manchen Regionen kann man die Ausbildung mit einem Hauptschulabschluss Okay, machen. auf Somali gobolada qaarkood Hauptschulabschluss reicht somaha, laakiin badanaa meistens braucht man ein Realschulabschluss baa loo baahan yahay, laakiin mararka qaarkood Hauptschulabschluss baa lagu geli karaa xitaa somaha. Okay. Su'aasha saddexaad, Ausbildung halkee baad ka samaysaa? Ausbildung markaad dhamaysidna ma Krankenhaus baad ka shaqaynaysaa mise Praxis mise Psychiatrie, Cilaaj, bal taa ii sheeg. Du kannst in mehreren Bereichen nach der Ausbildung arbeiten. Im Krankenhaus kannst du arbeiten. Okay, isbitaalkaad ka shaqayn kartaa kow, Krankenhauska haye. Im Altenheim. Altenheim, waa meesha dadka waayeelka lagu hayo. In der ambulanten Pflege. Ambulante Pflege waa maxay? In der ambulanten Pflege besucht man Patienten zu Hause und bringt Okay. ihnen deren Pflegepakete. Ambulante Pflege waxa weeyaan dadka xanuunsanaya guriga lagu yimaadaa, halkaa baa lagu caawiyaa somaha. Haye Und in der Psychiatrie. Psychiatrie soo dadka maskaxiyan u buka ay joogaan somaha. Okay. Yahay su'aasha ugu dambaysa, qofkee baad kula talin lahayd inuu Ausbildung sameeyo? Ausbildung ma adag yahay? Maxaa lagu bartaa Ausbildung xirfadaas? Saddexdaas sano. Ausbildung ist immer adka, aber ich würde es den Leuten empfehlen, die an Medizin interessiert sind, die später vielleicht auch ein Medizinstudium mal machen möchten. Okay. Das kannst du durch die Ausbildung auch dann machen. Okay, waxay tiri waxaan dadka kula talin lahaa dadka caafimaadka danaynaya jecel inay bartaan waa qof caafimaad bartay weyn somaha. Marka Ausbildungka dhamaysidna xitaa waad si dalaaci kartaa, waxaad baran kartaa Medizin somaha. Marka imka Ausbildungka dhamaysid jaamacadda xitaa hadaad gashid, hast du Vorzüge? Ja, wird es leichter reinzukommen in die Okay, Studiengänge. xitaa way ku fududaanaysaa haddaad danaynaysid inaad dhakhtar noqotid somaha. Ja. Okay.